bulshooyinka Garowe iyo Puntland runtii aad baan idinka mahadcelinaynaa aniga iyo wafdigayga sida wanaagsan oo sharafta badan oo waaltinimada leh ee Soomaalida aad noo soo dhaweyseen haddana aad noo soo wotinaysaan runtii waxay ahayd farxad weyn mar walba aan imaado Garowe waxaan la kulmaa shacab aad iyo aad u fara badan oo banaanka taagan oo saacado badan taagan oo hadee Garowe waxay ka tirsantahay magaalooyinka ugu waaweyn oo ugu population-ka badan oo laga yaabo inay 8 saacadood 9 saacadood banaanka loo taagnaadaan suugaan aad iyo aad baan runtii bulshooyinkaas aan uga mahadcelinayaa inay sida sharafta leh oo waaltinimada ay noo soo dhaweeyeen iyagoo laga yaabo inay hawlo badan oo muhiim ah ka soo tageen waxay inoobi karna ma aha waa jeclaan lahayn inaan u istaagno oo aan salaamno laakiin duruufta nooma saamixin إن شاء الله وقتها صوص عضار ما ندورنا يلدورنا محيل الدي واحد لوي قالنا مركز أركو شعب وين برنامج تاجن إن نجلبوه وان سودجو وان دحقاضه وان سلامه لكن مشكلة بلا إن شاء الله وقت كله نوع هانيسا كنت حنوقف إذا سلي على الإساركي ولكن أقول قلبي إني إن حوله قرن كلية هي أنكو قبرنا دولة goboleedyadii isugu keen dambeysay shirkii Baydhabo oo xaqiiqatan aan ku ballanay shirka loogu xiga inaan ku qaban doono meesha la yiraahdo Garowe inaan isku aragnay halkan oo aan haddana ballan ku dhiganay inaan isku aragno bisha soo socota Maarso dhexaadkeeda insha Allah dula yiraahdo oo aan hawlihii runtii naga hakaday aan dib u soo cusboonsiino oo annagoo dalka iyo dadka u shaqeynayna halkaasi waxa la wixii qabyaha oo umada danta u ahaa aan ku dhameystirno haduu Ilaahay yiraahdo madaxweynaha waago mahadcelinaya runtii maxaan ku raahdaa qaybta muhiimka uu ka qaatay sidii loo wada hadli lahaa maxaa yeelay waxa loo shaqeeyaa umada Soomaaliyeed looga saar lahaa wax alla wixii mugdi ah aad iyo aad runtii uga mahadcelinaya doorku ka qaatay shariifka ah insha Allah haduu Ilaahay yiraahdana halkan aan imaanayna inta aan ku gaarno go'aan iyo wax la taaban karana haddii qaadato usbuuc iyo 2 usbuuc halkaan aan joogi doonaa insha Allah waana mahadsantahay madaxweyne